Waxaan ka hadlayaa dhowr riyo aragtidooda markii qofka koriyooda uu ku farxayo, farxad gelinayso. Caadi ahaan fasirkeedana ay tahay mid farxad leh. Riyooyinka waa riyooyin shaaci ah oo mar walba soo noqnoqdo, yacni oo dadka badana intooda badan ay arkaan. Marka ila socda. Bismillah, alxamdulillah, allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Maxamed. Assalaamu calaykum. Maanta sidaa hordhacaada muuqaalka ka aragtaan, waxaan soo diyaariyey wax u eg sida su'aalihii jawaabo kale. Riyooyin oo badanaaba dadka arkaan oo caadi ahaan qofka markuu ku riyoodo riyada farxad gelinayso, fasirkeedana ay fiican tahay. Sidii su'aalihii jawaabo kale waxyaabo badan oo aan soo diyaariyey waaye ila socda. Midaas kale waan idin xiisay insha Allah muuqaalka meel dheer gaarsiiyey, laakiin saara xageen ku maqnaahay su'aalina arrintaas ka kay dhaafiya. Walaalayaal caajis leesinimo ma aqaano ii soo duceeyo. Nambarka 1 qofka ku riyooda xaflad. Xafladda ha ahaato mid aroos mise mid kale oo adiga waxay doontaba ahaato muhiim ha ahaato munaasabad farxad leh. Waxay tilmaamaysaa qurbo Rabbi kaafeeday. Waxay tilmaamaysaa soo noqosho qof ka maqnaa muddo dheer, mise aad akhbaartiisa waysaneed, mise oo xabsi ku jiray, mise si kale xiriirkiina u kala go'ay, mise xiriirkiina aan badnayn. Waxay kaloo noqonaysaa guur dadkaan weli guursanin. Munaasabadda waxaa weeye munaasabadda oo riyaa ku arkaysid, yacni xafladaha. Waxay tilmaamaysaa sida riyada dhexdeeda ugu quruxsan tahay, ayayna ugu quruxsan tahay, sida waaqacay ugu quruxsan tahay, ayay riyadan ugu quruxsan tahay. Shuruudo qaar waa inay soo raacaan. Inayna ahayn mid fasaad ah, sida kalaabyadii diskoogii waxyaaba aanan ahayn, muusika iyo maxay ahayd fadara aanan ka jirin. Yacni munaasabad farxad loo jabigeeda degan yahay inuu ahaado. Qofka kurbeysnaa mise murugiya arrimo haystay oo ku riyooda habeen intoo seexda ku riyooda riyada noocan oo kalena waxay tilmaamaysaa inuu Rabbi kurbada ka fiidaayo, farajna Rabbi qariib ah weliba soo dhow uu helayo, wallaahu yaclam. Sidoo kale akhbaar uu ku farxan uu maqlaay. Yacni ka soo qaad adiga hadda waxaad sugaysaa wixii waxaad ka sugaysaa adiga waxaad sugaysaa waxay doontaba ahaato. Kabacdina waa seexatay riyadan oo kale aad aragtay waa riyo khayr ah. Maxay ahayd riyadan markaad adiga u fasiritid nafsad ahaantaada dhinac wanaagsan, mid wanaagsan ay ku noqonaysaa. Riyadana ma fiicna inaad mar walba ama fasiraad u tagtid mise mar walba Google meel qaar aad ka raadisid. Hal qof hadduu kuu fasiro kifaay, mar kale fasir ha u raadsanin. Waa riyadaada siday ahayd. Si ka bedelnay noqonaysaa ilaa mufasiriinta qaar, wallaahu yaclam. Nambarka 2 haddaa ku riyootid adoo biyo cabaayo. Adoo biyo cabaayo waa riyo aad u wanaagsan. Qaasatan xaaladahaaga hadday markaa yihiin xaaladaha haddaan soo wado oo kala duwan. Qofka xoolo la'aan ka sheeganayo waa hanti inuu Rabbi xoolo siinayo. Qofka meel ka ciriiri ka dareemayo, yacni waxyaabo qaar dhibaayo, waxay tilmaamaysaa faraj, soo dhamaasho kurbahaaga. Adoo biyo cabaayo, kurbooyinkaaga soo dhamaanayo, Rabbi faraj kuu furaayo. Albaabyo adiga kugu cuslaa inaad furtid, Rabbi kuu furaayo. Sidoo kale dadka xanuunsan caafimaad ay tilmaamaysaa. Adoo biyo cabaayo waxay kaloo tilmaamaysaa fursadooyin wanaagsan inay ku soo marayaan. Waxay kaloo tilmaamaysaa shaqo qofka shaqo raadisaa, adiga arsaaqad nooci doontaba ha ahaato. Muhiimadda marka maxaa waaye sida caadada ahayd biyaha ha ahaadaan biyo nadiif ah oo macaan. Yacni kullama biyaha adigay kuugu socdeen oo kuu macaanaayeen oo kuu nadiifsanaayeen oo kuu qaboobanaayeen, kullama wax walba adii Rabbi ah ka rabtay kuu ziyaadayo. Yacni wax walba adiga markaas niida ku heysay, yacni siday riyada u fiicnaayeen biyaha cabitaankooda kuugu macaanaayeen in la eg, wallaahu yaclam. Nambarka 3 qofka ku riyooda shumacyada. Shumaca la shito. Shumac maadaama uu iftiinaayo waxay tilmaamaysaa ficlan nuur. Wuxuu kaloo tilmaamaya hidaayo mise iimaan.
waa isku meeshuun. Wuxuu kaloo tilmaamaya haddaa lacala aad ku aragtid gurigaaga oo kale guri barakeysan inuu yahay, guri cibaada dadkiisa yani asxaabul cibaada inay tahay. sidoo kale qofka oo arsaaqad xumada iyo diiqad maaliya waxa ahaayo waxay tilmaamaysaa maal. mufasiriin qaar waxay leeyihiin shamaca qofka kuriyooda haddii kabacdi hataa riidaa kabacdi xoolo soo gala xoolaha ma daahayaan, leanna waxay u daliishanaa maadaama shamaca uu dhalaalayo. laakiin mufasiriinta kale oo badan oo yidhaahdeen shamaca waa waxyaabo badan oo wanaagsan ayaa ka badan. wallaahu yaclam, kulleyba wallaahu yaclam. sida caadada ah cakiskeeda haddii aa kuriyotay adoo shamac deminay, sida hadda marka dhalasho la leeyahay oo kale dad qaar waxaa jiro aan fahamsaneyn deminta shamaca inay tahay nooc min yani aan wanaagsaneyn. waxay tahay inkastoo hadda dad badan ay fahamsan yihiin, dadka diinta yaqaana way ka deeriyeen, laannu waa casiimaad u sameynaysa shayaadiin. wallaahu yaclam. laakiin waxay leeyihiin adoo deminaya shamaca ma wanaagsana. okay, riyo walba aan idiin fasiro maadaama ay riyooyinka wanaagsan yihiin, qaybta aan ka wanaagsanin aan idiin tilmaamaya. sida haddaba xafladoo kale hadday tahay xaflad fadaraa aan wanaagsaneyn inayn wanaagsaneyn. sidoo kale biyaha hadday ahayn biyo dhanaan wasaqa ur leh yani cakiskeeda waay sida aan soo fasiray dad lidkeedii waay yani wax wanaagsan maaha. sidoo kale hadda shamac oo kale hadduu iftiinka shamca iyo aragtida shamca waa arrin wanaagsan, laakiin adigoo deminayo oo afuufayo taa ma fiicno, leanno maadaama arrintaa ayba tahayba arrin shayaadiin waxyaabaha wacayaadu bilaa yani shaqo ku leh. sidoo kale maxay ahayd marka sidaa darteed ayaa walaalaal idinku sheegayaa dhinaca aan wanaagsaneyn. number 4, haddaa kuriyootid adigoo qabaysanayo, iyo mid kale waa soo raacin doonaa. number 5, adoo cadaysanayo. inkastoo riid cadigan wax badan kasoo hadlay, laakiin riyooyinka kale hadda aniga maanta kasoo hadlay waxaa u malaynaya janankeygan inaan kaga soo hadlay. haddii aan kaga soo hadlayno qeybo yaryar oo su-aale aan kusoo iyo jawaabtooda ku jirta laga yaabaa. ma xasuusta alaa kulli xaal. haddaa kuriyootid adigoo qabaysanayo, alla qabayska wamaa daraaka qabayska wax ka wanaagsan riidiis ma jirto. adoo qabaysanaya waxaad suuraysataa adoo qol ciriiri ah mugdi ah yar ku dhex jiriyo albaab iftiinayo habo lahoo qurux badanoo lagu furoo kale adig iska suurayso. haddaad kuriyootid adigoo qabaysanayo sidaasay lamid tahay. si kaloo kasii wanaagsanba waxay tilmaamaysaa haddaad xanuunsaneed caafimaad. soomaalida maxay dhahaan kameera wixii ku soo maray ma dhahaanoo dhibaato walba ay ku haysay waxay tilmaamaysaa haddaad kuriyootid adigoo qabaysanaya inaad dhibaatadaas sidaad u qabaysato wasaqda jirkaaga ugu dhaqday inay kaaga baxayso hataa hadduu xanuun yahay. waxaa wanaagsan adigoo ficlan qof rabbi ku xirana ahlul cibaada ah oo haddana aad ka duceysatay dhibaatadii ku haysatay waxay doontaba ahaato, kabacdi riidan aad aragtay waa riyo aad u wanaagsan. waxay ku tilmaamaysaa faraj kurbo badan kabacdi, xoolo diiqad badan iyo maalyari kabacdi, caafimaad xanuuno badan kabacdi, murugo farxad murugo badan kabacdi. wallaahu yaclam. sidoo kale waxay tilmaamaysaa toobad. culimo qaar waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa toobad iyo tahaarad iyo dembi dhaaf inuu rabbi kuu dembi dhaafayo. yacni hataa fil ardi waaqicana qabayska uu fiican yahay waa raaxata baal. sidoo kale riidan wuxuu ku yahay raaxata baal, yacni raaxo iyo xasilooni deganaasho. wallaahu yaclam. oo u dhow qabayska oo horena aan kusoo hadlay idiin raacina waxay tahay cadiga aad ayuu fiican yahay. cadiga qof kurbeysanoo arka riyo ku arka oo asoo ilkiisa cadaystay nadiif ka dhigay oo riyadaa kabacdi aan farxiina way yar tahay.
haddaa kuriyootid adigoo cadaysanayo waa kurbooyin badan oo rabbi kaa feedaayo oo raaxata baal helaysid. Horta muhiimada lambarka koow waxaway ina xasilooni rabbi ku siinayo sidoo qabayska wanaagsan yahay arrimo badan kala ma dubno. halkaasaan kusoo koobaya like noo saara noona sheer gareeya wixii su-aalo qaybta commentiga qaybta Facebook insha Allah waxaan xooga saaraa inaan kusoo noqday iisoo daceeyo maxay ahayd videoga meel dheer gaarsii dhiirigelin aan idinka helo insha Allah si aan su-aaleeni jawaabina ugu soo noqono.